kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadan ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xubnaha mucaaradka oo magaalada Muqdisho hadda uu kaga socanayo shir xasaasi ah iyo shirkan oo go'aan looga gaarayo arrimaha dastuurka mucaaradka mowqifkoodii oo ay ku dhawaaqeen iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ayaanu idiin soo gudbin doonaa shirka hadda kaga socanayo gudaha magaalada Muqdisho سلمد waxaa idin wadaagi doonaa xubno ka tirsan mucaaradka oo faahfaahin ka bixiyay kulan gaar ah oo ay la yeesheen madaxweyne xasan sheekh iyo arrimo cajiib ah oo dhaxmaray iyaga iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu helay xubnihii ugu badnaa oo xildhibaano ah kuwaasi oo maamulkiisa ka fikir doonaa isla markaasina Muqdisho ku sugnaa xildhibaanadaas oo laga soo doortay deegaanada Puntland warkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa cafiskay weydiistay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo guuxa la xiriira muddo kordhinta filla Soomaaliya oo si weyn u qabsaday warbaahinta bulshada mucaaradka oo qeylidaan ka muujiyay arintan warbixinadaas ayaan soo koobi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho waxaa hadda ka soconaya shir gaar ah oo u dhaxeeya xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya shirarkan waxaa looga hadlayaa xaaladda hubantilaanta siyaasadeed ee dalka gaar ahaan midda dastuurka ayaa diiradda la saaraya wararkii ugu dambeeyay in laga soo gaaray waxay sheegayeen halkaas uu tagay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo wata ciidamo badan iyo sidoo kale xubnaha kale ee golaha mustaqbalka madaxweyne Shariif Cabdulaahi Shukuur Warsame iyo sidoo kale Cabdulqaadir Cusable ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyri iyo qaar badan oo mucaaradka ka mid ah hadalkaasi laga jeediyay waxa si weyn loogu diray dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo meelmarinta dastuurkeeda oo ugu dambeyntii arbacada toddobaadka sida qorshuhu yahay soo gabagabay doonto xubnaha mucaaradka ayaa si isku mid ah u sheegay in dastuurka dalka uu yahay kaliya midkii 2012 hadaba qaar kamid ah oo hadallo jeediyay waxay sheegeen in haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku adkaysto si wadista wax ka bedelka dastuurka iyaguna inay Muqdisho yeelan doonto saddex madaxweyne sida hadalku dhigeen geeska kale Cabdulqaadir Cusable oo kamid ah xubno dhawaalo kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaana uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku adkaystay wax ka bedelka dastuurka iyo sidoo kale doorasho qof cod ah uu sheegay in xilligan aan dalka laga qaban karin dhinaca kale Cabdulqaadir Cusable waxa uu duray doorashadii golaha deegaanka laga qabtay magaalada Muqdisho taas oo sheegay in qabiilada Soomaaliyeed midba loo sheegay inuu degmo leeyahay waxa uu ayaan daro ku tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hadda uu hay'adaha dowladda madaxweynekoodu gabaabsi u yahay inuu ku sii adkaysto inuu qabanayo doorasho qof cod ah habeenimada xalay ahayd magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan gaar ah oo dhaxmaray xildhibaanada laga soo doortay deegaanada Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni kulankan oo ahaa mid gaar ah albaabadu xiran yihiin ayaa xildhibaanadan oo ay ku jiraan xitaa xubno golaha wasiirada qayb ka ah kuwaas oo laga soo doortay Puntland waxay cafis ku weydiistay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni xildhibaanadan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu isfaamo u kala dhaxeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyagoo xitaa aanay u suuragelin inay Puntland dib ugu laabtaan tan iyo markii la soo doortay Deni iyo filla Soomaaliyana ay kala tageen haddaba heshiiskan dhaxmaray xildhibaanadan iyo sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa laga baqdan qabaa inuu saameyn ku yeesho wax ka bedelka dastuurka maadaama Puntland xildhibaanada ugu badan ay ku leedahay marka la eego baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixinada soo idil aragtida hoos nabadgelyo